bilowga qarnigii labaad ee miilaadiga dalka Shiinaha waxaa ka jiray 3 boqortooyo oo uu loolan xooggan ka dhex jiray. Waxaa dhacday in xilligaasi taliye ku xildheera xeeladaha dagaalka lana oran jiray Zhuge Liang in isaga oo iska jooga qalcadiisii ay ogaadeen ciidan ay colaad kala dhaxaysay meesha uu joogo, waxayna go'aansadeen inay duulaan ku soo qaadaan. ciidankan duulaanka ah waxaa hogaaminayay sarkaal la oran jiray Sima Yi. sarkaalkan ayaa soo hogaamiyey kumanaan dagaaliyahan oo saanad iyo tiraba intay rabaan ka badan ciidamada qalcadda ku jira. markii uu ogaaday Zhuge Liang ciidamadan duulaanka ah ee ku soo socda qalcaddiisa iyo inay ka tira badan yihiin, ayuu qaaday tallaabo filanwaa ah. wuxuu amray ciidankiisii inay furaan albaabkii qalcadda laga soo galayay, hubka ay haystaanna ay qariyaan si aan loo arkin. diraaskii ciidanka ee ay gashanaayeenna ay iska saaraan oo ay beddelkiisa gashtaan dhar caadi ah, iskana dhigaan sida shaqaale hagaajinaya qalcadda. isagiina waxaynu u jeednaa Zhuge Liang halkii uu dhuuman lahaa ayuu u baxay fiinta sare ee qalcadda, meel ay ka wada arki karaan ciidankii duulaanka ahaa. wuxuuna bilowday inuu muusig iska qaraacdo. markii ciidamadii uu hogaaminayay Sima Yi soo gaareen qalcaddii, ayay arkeen qalcaddii oo iskaba ballaqan. ninkii ay rabeen inay dilaanna uu fiinta sare ee qalcadda iska fadhiyo, musigna iska qaraacanayo. markiiba waxaa ku bilowday argagax iyo shaki ku aadan in loo dhigay shirqool. wuxuuna bilaabay inuu ciidankiisii amar ku siiyo inaan la gelin qalcadda oo ay dib u gurasho sameeyaan, kuna noqdaan xeryihii ay ka yimaadeen. xeeladdan uu adeegsaday Zhuge Liang ayaa loo yaqaanaa marka la joogo cilmi nafsiga reverse psychology, oo ku noqonaysa Soomaali ahaan cilmi nafsiga rogan. intaynan u gelin muuqaalkeenna, waa Bari Academy waxay kugu bishaaraynaysaa in wixii hadda ka dambeeya dhammaan koorsooyinka ku jira website-keenna aad ku iibsan kartid hal qiime oo ah $26 oo keliya, adiga oo qiimahan ku helaya dhammaan koorsooyinka ku jira website-keenna ee kala ah siraha muuqaal samaynta, barashada Premiere Pro, samaynta website-yada adiga oo adeegsanaya WordPress, barashada Photoshop, iyo sidoo kaleba barashada barnaamijka CapCut. dhammaan koorsooyinkan iyo sidoo kaleba koorsooyinkeenna soo socda muddo sannad ah waxaad ku heli doontaa qiime go'an oo ah $26 oo keliya. isdiiwaangeli hadda oo ka faa'iidayso fursaddan, lana wadaag saaxiibada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. markaad aragto tilmaamo ama amar wax kuu diidaya sida ha taaban, ha istaagin halkan iyo amarada kale ee la midka ah, markiiba maskaxdaadu waxay isweydiinaysaa sababta. badanaana way ka dhaga adeegaysaa qaadashada amarkaas oo waxay samaynaysaa wixii loo diiday. sida aad haddaba uga dhaga adeegtay amarka ku qoran cinwaanka muuqaalkan ee ku leh haddaawan muuqaalkan wax kasta oo dhaca. waxaa la mida marka habeenkii aad damacdo inaad seexato, haddii subaxnimada ay ku taallo shaqo oo aad u sheegtid naftaada inay seexato si aysan hurdo kuula tegin beri, lagama yaabo inay hurdo kuugu soo dhacdo oo cabbaar ayay kugu qaadataa inaad hurdo iska raadisid. dhammaan dhaqamadan ay maskaxdaadu kuu diidayso qaadashada amarada loo jeediyo maahan wax ugub ah oo keligaa kugu kooban, balse waa wax dadka oo dhammi ay ka siman yihiin, waana waxa loogu yeero afka qalaad reverse psychology, noqonaysana Soomaali ahaan cilmi nafsiga rogan. sheekada aynu bilowga muuqaalka ku soo sheegnay, Zhuge Liang wuxuu dareensiiyey cadowgiisii inay jiraan wax uu isku hadlaynayo, wuxuuna u ballaqay albaabada qasrigiisii sida inuu leeyahay soo gala oo kale. sida dabiiciga ah, caqligu ma qaadan karo in qof aad duulaan ku tahay uu albaabkiisa kuu furo halkii uu difaac xiran lahaa, isaguna halkii uu gaashaaman lahaa meel kuu muuqato fadhiisto. markaad aragtid arrintan, qaabka ugu horeeya ee uu caqligaagu u fakerayo waa qaab cagsi ah. dabcan looma adeegsado xeeladdan dagaalada oo keliya, balse sidoo kalena suuqgeynta waa loo adeegsadaa. hoteelkan waxaa la yidhaahdaa Hans Brenker, wuxuuna ku yaalaa magaalada Amsterdam, caasimadda dalka Netherland. hoteelkan ayaa sameeyey suuqgeyntii ugu layaabka badnayd adduunka si uu ugu dhiirigeliyo dadka inay soo booqdaan hoteelka. degaanna wuxuu bilaabay xayeysiisyo uu halkudhig uga dhigay waxaan nahay hoteelka ugu xun adduunka. halkudhigyada xayeysiisyada uu adeegsadayna waxaa ka mid ahaa lagama yaabo inaad aragtid hoteel naga xun, urka hoteelku waa mid aad u xun,
qaylo xaddhaaf ah ayuu leeyahay hoteelkeennu iyo halkudhigyo la mid ah oo sida caadiga ah qofkii arka ayaa dag tahay inuu go'aansado degidda hoteelkan. intaasi keliya kuma ekaan, balse xitaa waxay sameeyeen sawirro ay isku barbardhigayaan dadka soo degay hoteelka markii ay soo degayeen sida ay ahaayeen iyo markii ay ka baxayeen sida ay noqdeen. waxaana ka muuqda sawirrada qofka oo marka hore faraxsan, halka marka uu hoteelka ka baxayana wejigiisa ay ka muuqato xagtiimo iyo calaamado muujinaya in la garaacay. dabcan sida caadiga ah sawirradan iyo halkudhigyadani waxay ka dhigayaan qof kasta oo arka mid ka anfariira kana fogaada hoteelkan. laakiin ka waran haddii aan ku dhaho suuqgeyntan kadib si xawli ah ayay kor ugu kacday tirada dadka degaya hoteelkan ee xitaa u soo safraya si ay bal u sameeyaan waxaan loo diiday ayna degaan hoteelka. xitaa saxaafadda ugu tunka weyn caalamka ayaa bilowday falanqaynta suuqgeyntan iyo natiijada filanwaaga ah ee ka dhalatay. tijaabadan iyo tijaabooyin kale oo la mida ayaa bannaanka u soo saartay in dadku wixii laga celiyo ee la dhaho ha samaynina ay ugu jecel yihiin inay sameeyaan. marka waalidku ilmihiisa uu amro inaysan samayn arrimaha qaar ama u diido samaynta sida ay rabaan, markiiba maskaxda ilmuhu waxay soo tuuraysaa falcelinno kala duwan, sida in ficilkii loo diiday uu sameeyo inta waalidku ay ka sii jeedaan, ama uu dareemo in cadaadis la saarayo oo dooqiisa uusan ku socon karin. si la mid ah marka qof shaqaale ah la siiyo amarro xadidaya qaabka uu jeclaan lahaa inuu shaqada u qabto, waxay maskaxdu dareemaysaa cidhiiri iyo in habraacan aan shaqada loo qaban karin, kadibna culays uu ku yimaado qaab fikirkiisa maskaxeed. dhammaan falcelintaas lidka ah ee ay maskaxdu soo tuurayso ayaa waxaa lagu sifeeyaa qayb ka mid a caqliga oo loo yaqaano reverse psychology. reverse psychology waa falcelin ay maskaxdu samayso, taasi oo ka duwan fariimaha ay ka helayso dareen wadayaasha jirka. dareen kasta oo bannaanka ka yimaada, maskaxdu waxay iskaga samaysaa difaac, markiibana waxay soo saaraysaa falcelin iyo wax isweydiin lid ku ah fariintii ay heshay. tusaalayaasha ugu fiican ee ku soo koobaya reverse psychology waa oraahda ku xusan buugga xeeladaha dagaalka ama The Art of War ee odhanaysa isku muuji sida inaad daciif tahay marka aad tahay mid xoog badan, iskuna muuji mid awood badan marka aad tahay daciif. waxaana tusaale kugu filan sheekadii aynu ku soo sheegnay bilowga muuqaalkan iyo sida hoggaamiye dhan oo laga ciidan iyo saanad badnaa xeelad yar oo uu sameeyey ay uga dhigtay cadowgiisii kuwo istusa muuqaal aan jirin dibna u gurta. cilmigan loo yaqaano reverse psychology markii ugu horeysay waxaa wax laga qoray sannadkii 1966. maqaalkan ayaa xusay xilligaasi in dadka badankood ay dareemaan xirxirnaan haddii amar xadidan la siiyo ama loo dooro waxa ay qabanayaan, badanaana ay ka dhaga adeegaan qabashada ama fulinta arrinkaas. waxaana ugu badan oo sameeya arrintan carruurta yaryar oo haddii wax loo diido ku dhaga adeega samaynta waxa loo diiday, sidoo kalena haddii cunto cayiman ama wax gaar ah la siiyo ka dhaga adeega qaadashada ama cunidda cuntadaas. intaas ayaynu ku soo gebagabeynaynaa muuqaalkeenna maanta oo aynu ku eegaynay cilmiga loo yaqaano reverse psychology. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad like inoo saartid lana wadaagtid asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. mahadsanidin.